mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka saaxil ayaa agab caafimaad ee lagaga gaashaanto xanuunka COVID-19 ku wareejiyay maamulayaasha xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolka saaxil. agabkan caafimaad oo loogu talagalay muddo bila inay isticmaalaan xarumahaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha cisbitaalada degmada Berbera Caashe Aadan Guuleed. agabkii ama qalabkii loogu talagalay ka hortagga cudurka khatarta ah aynu muddada badan iminka kula jirno jihaadka ama la dagaalanka kula jirno inaynu helo wixii lagaga hortagayay kuwaas oo ay ka mid yihiin agabka fara badan ee maanta halkan yaala annaguna haddaanu nahay bahdii caafimaadka inaanu isticmaali doono sida ugu fiican anuguna adeegi doono bulshada. baabuurta la raacaynu iska buufinayna meesha la fadhiistaynu iska buufinayna waa biyo iyo saabuun iyo jaafeer laba milqacadood jaafeera. marka waxaan idin leeyahay walaalayaal nagala qayb gala bahda caafimaadkuna ha ku eegina. geesta kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maamulayaasha xarumaha hooyada iyo dhallaanka oo iyaguna halkaasi dareenkooda ka dhiibtay. waxaan ku wacyigelinayaa dadweynaha gobolka saaxil goob kastoo ay joogaan alaabtan la keenay ma aha wax aynu daawanayno ma noqonayso. waxay noqonaysaa agab lagu shaqeeyo oo xarun kasta oo caafimaad oo gobolka ku taala ay ku shaqeyso oo ay dadweynuhu insha Allah taala ay gaadho ay halkeeda ku gaadho. laakiin maxaa looga baahan yahay bulshadeena dhammaan xarumaha gobolka oo dhan kullu guddoonsiinaya howlkan wasaaradda caafimaadka agab dhameystiran oo runtii loo baahnaayo muddo badan aanu eegnay oo ka kooban waxyaalaha halka yaalo dhan aad arkaysaan waana agabkii ka hortagga ma hadda weyn waa ka hortagga wixii laga hortagayo COVID-19 xanuunka loo yaqaan ama coronavirus-ka. waa agab fara badan wuxuu ka kooban yahay waa maski gloveski iyo shaamboogi hand sanitizer-kii lagu farxalanayay infusionskii saabuunihii bahlii wax lagu buufinayo waa dhammaan waa agab dhameystiran weeye. agabka dhameystiran waan ka guddoonay isduwaa aad baardii salaamaya halkan aanu joogno maanta waxa lagu qaybinayaa oo noogu qaybinayaa naguna wareejinaya isduwaa gobolka Bashiir Diire annagoo ah mas'uuliyiintii xanaanooyinka gobolka agab dhameystiran oo lagaga hortagayo COVID-19 taasoo nagu adeegi doono kagana shaqayn doono xarumihii aan ka niminday sidii loogu talagalay. isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Bashiir Diire Jaamac ayaa halkaasi kula dardaarmay maamulayaasha xarumaha hooyada iyo dhallaanka isagoo ku dhiirigeliyay inay agabkan tashiishaan. aan wareejinaynaa agab caafimaad oo loo yaqaan agabkan personal protective equipment-ka ama agabka lagaga gaashaanto xanuunkan ummadda kaga qaylisiiyay ee COVID-19. agabkaasna loogu dhiibay in la gaarsiiyo xarumaha caafimaadka ee gobolka. marka halkan waxaa fadhiya qayb ka mida mas'uuliyiintii xanaanooyinka ee labada degmada Sheekh iyo degmada Berbera. waxaanu markaa ku wareejinaynaa agab dhan maskiski ama face maski afka laga xidhanayay oo xarun walba loogu talagalay inay muddo bila isticmaasho. gloveski ay xidhanayeen ay ka xidhanayeen markaa xaalad kastoo caafimaad oo qofka caafimaadka uu ka shaqeeyo. waxyaabihii nadaafadda ay tahay saabuun hadday tahay shaambo iyo hadday tahay alcohol kan la ismariyo ee 60% alcoholka ay loogu talagalay in lagu nadiifiyo marka aan la farxalanayn ee degdeg ah. waxaa intaa raaca waxa halkan yaala iyaguna waxyaabihii sprayerski ee la buufinayay iyo infusions ama sayloonada qayb ka mid ah iyo agabyo kale oo dheeraada oo aanu gobolhaan ugu darnay. waxaan markaa jecelahay in ay wasaaraduna markhaati ka ahaato inaan wareejinay agabkii ay ugu talagatay xarumaha caafimaadka oo loo baahan yahay mar kastaba in qofka xirfadlaha caafimaadku uu adeegsado. sidaa horeba loo sheegay shaqaalaha ugu khatar badan adduunkana intaan arkay imka ilaa 600 oo neerasaba ku dhimatay dhakhaatiir aad u fara badan baa ku dhintay. dadku aad ka u laayay caafimaadka ugu horreeyay intii aan xitaa aad loo fahmin xanuunka dadka caafimaadku aad u laayay. innaga waxa waajib nagu ah inaynu shaqaalaha caafimaadka aynu ka dhigno qaar u gaashaaman si ay dadka iyo bulshada
iyagoo bad qaba ay ugu shaqeeyaan. waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil.